waxqabad kan waa local ma aan gaarin inaan maaragtay dibadda aan u qaadno oo halkan aan ka faa'iidnay ama maaragtay Soomaaliya aan qaadno laakiin weli waxaan wadnaa dhismaha bulshada meesha degan iyo sidii ay xiriir wanaagsan u yeelan lahayn si wada qabsi wanaagsan loo helo dalkii dadka laga dambeeya wax u gaarsiin labada kun iyo 15 marka hadda waxaan mashquul ku nahay Soomaalida tareeda inaan sameyno masaajid ee Soomaalida ay leedahay waxaa dhacday taariikh yar oo masaajidada maaragtay Koreeda ka dhacay oo guddiga badankiisa guddiga odoogii dhibkaas yar oo dhacay wuxuu sababay inaan annaga aan isbaraarujino hadda waxaan loo aragtay lacag ilaa 15 kun oo euro ah oo bishii lasoo dhaafay aan aruurinay ilaa hadda aan wadno lacag aruurintii codkaada ma maqlo yahay قدر حوق له إلا هذا العود من المعرفة سي كل وقت كنا العقد ضد سي عن وجاهنا وحنا لنا سي عن وحنا إن هراي وحنا هذا اللي في جميع علي يجودي بدن وجروب كمية رج بدن ويتجاهلين ويتحنى كين على التدعوي عن وشيء إن أنا حنا لها ليني لكن ماشي يتعلو وهي لا أسكت وحسب مثلا اسكت تشتع لكن waxaan door bidnay intaan dad wax ku xoog qabsan in aanay wax samaysan waxaan marka istaagka labaad oo u soo soconaa waxay tahay in jaalidaha nabadda aan u soo wargelino inaan ay naftirkooda gacan ka rabno si arrintaas ay loo garab qaybaato loo garab galaa sidaan hore u balansanayno guddiga Efsan iyo guddiga badankiisa ku jiro arrimaha guddiga arrimaha samafalka marka meeshaas waa soo dhigno xalaal iyo macluumaad ah haddana waxaan u baahnaan doonaa haddii ilaahay suurtageliyo magaalooyinka ka kala timideen inaad warka ula naqataan xiriirihiin loo qaybtaan annaka ilaa hadda ma fadhino inaan idin soo gaarno qof magaalo walbana aan soo wacno oo iridda aan kasoo galno daaqadda aan isku geeyo si idanoo warqa aan u imaano marka waa mahadsantihiin وجرى الدكتور قال أنا أحكي محل ضدك وجودين وواحد قرتين وفلاير وحنا ضدك ده كنا نقول بس ضدك كنا نقول ما إلا واحد فلاير أو قرن بس اللي سام رش بالبيع سام رش وشيء واحد يوم أفضل واحد كذا عبارة إن شاء الله Soomaali استخدم بريدة ururka magaciisa lagu leeyahay ururka magaciisa ururkiina magaciis ururkan waxaa la Soomaali استخدم بريدة waa local ما يدري ولا بيكون كل واحد بريدة في لبكم يوشني تبانكي ولا بس سنة جيران ها بريدة وقت مغلوي على الحوار أول كان عامل بريدة أنا وقت اللي كنت أقول لكم مش بس علي وأنا كنت قاعدين وأنا كنت مسؤولية له وأنا كنت الشمس تتكسر مالين نرد كنت تاجراني أنت أنا وقت ديار بقولنا تاجرنا تتكسر مالين راح كان يقول كاسة تاجران لين أنا كنت ما يصير بريدة اسمع صدق يا بسم الله الرحمن الرحيم horta aniga shakhsiyan intaan usoo kacnay arrin kaloo ka macaan halka kala kulanay waxaan dareemayaa dad diyaarsan oo Soomaaliyeed oo shaqeeyay soo shaqeeyay hadda inay shaqeeyaan diyaar u ah oo furihii socodka wado ayaa horta idinkugu hambalyeynaya ragga meesha ka hadlay iyo ragga odayaasha oo ka soo qayb galay gabdhahan iyo gab intaas kadib halii meeshaan annaga danaan u soo aadnay waa maalintii koowaad aan ka soo qayb galo guddoomiyaheena sida u hadlay waa cabdi oday muddo yaraana jirnaa dhib yar ayaa nala soo gudbonaan waana culus yahay runtii magaalada waxaan ku degannahay ilaa 250 qoys waa garan kartii intay la eg tahay soomaalida meesha ku nool waa loo yeeray waxaa la yiri dadkaada naga cisho samteeka naga imaana dadkuna waa muslimiin oo waxay u baahan yihiin waqti ramadaan wuu soo dhawaay meel ku cibaadaystaan arrintii aadan looga xumaaday abaabulaan galnay
aniga guddoomiyaha waxaa lagu magacaabay arrinta abaabulka masjidka istaktiga kama mid ahayn waxaan istusannay inaan dacwoono iyo inaan wax qabsano inay ka habboon tahay in annaga wax qabsano intaan dad hore wax u dhistay intaan iyaga la qabsan lahayn dhibaato kaloo muslimiin oo wanaagsan saafirka ku cibaadaysto inaan dhib geysano aniga kulleybo arrintaan usoo kacan wax weeyo jaaliyadaha soomaaliyeed oo magaalooyinka kala duwan ka yimid in nala caawiyo siduu guddoomiyaha u sheegay daaqadaan kasoo dhicin albaabka aan kasoo galno kasoo gelistan iska imaaw keligeed ma rabno